Cabdi Xasan Maxamed Qoori oo ka tirsanaa khawaarijta Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya. Cabdi ayaa Al-Shabaab ka tirsanaa 1 sano iyo bar waxaana uu sheegay in uu u dulqaadan waayay dhibaatada lagu hayo dadka shacabka ah siiba cidda uu ka soo jeedo ay khawaarijta si gaar ah ay u beegsanaysay. Al-Shabaab ayuu sheegay in diinta Islaamka ay ku gambadaan waxaana uu ballan qaaday in uu la dagaalami doono. maanta laga bilaabana habka loola dagaalamo iyo waqtiyada ay khawaarijtu ay soo weerar tagaan uu yaqaano waxaana uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu la falgalo ama uu garab istaago ciidamada dawladda si Al-Shabaab uu la dagaalamo. aniga waxa la yiraahdaa Cabdi Xasan Maxamed Qoori oo ka yimid Al-Shabaab maleeshiyada Al-Shabaab ka yimid waxaan ka imiday maalinta la gubayay dadkayna maatada ahay oo masaafurka ahaa iyo ceelashayni iyo dalkii iyo dadkayni laay markay laaynaayeen ayaa aniga ciira i qaaday dhakhtaraan jiray markaas bartii anoo jooga anoo dhakhtarkii jira haddaan xaafad ciidankii aan ka tirsanay aan ku noqdo wax kale ii arkay ninkii ilaa xanuunsanaay oo meeshaan yimiday berga inta yimiday hawla kale fuli kara alla dhihi kara markaas ayaan orday aan xaafadanada tagay xaafadeeda markaan tagay meelahaas aan ku dhuumaaleysanahay dabadeedna markii aan aniga dawladdu ay wadanka soo gaartay na dawladdeena sharafta lahayn isku soo dhiibay nimankaasu waa niman xun oo diinta ka been sheegay sidaan markii hore u maleynayay iyo sidaan kala kulmay farqi badan u dhaxeeya diinta waa lagu gabana nimankaasu waxa waaye niman xoolaha islaamka banaystay waxay banaysteen dhiiga dadka oo bilaadanka muslimiinta waxay banaysteen xaqa islaamka haddaan maaho aniga maaho Cabdi Xasan haanteed qoroga hore tonika qaada waxaan badda ku ridaa aan noqona ciidamada dawladda iyo dadka macawisleyda iyo dadkayna Soomaaliyeed aan ka mid noqonaya ana horbooda ana aqaana siyaasadooda xilliga soo weerarana aqaana aniga indhaha ka qoryaynayna insha Allah taala hadii been ilaahay taala hadii Allah awood lahu yiraahdo waa ummadda Soomaaliyeed oo maanta jirta oo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta maanka laga dagaalo jirtana waxaan oralahay inay ka yimaadeen. gudoomiyaha degmada Bulaburde Xasan Maxamed Cabdi ayaa isna sheegay inay soo dhaweyn doonaan cid kasta oo ka imaata fikirka khawaarijta argagixisada Al-Shabaab waxaana uu sheegay in Al-Shabaab xalay ficil guracan ay sameeyeen oo ah in ay dileen 300 oo neef oo ari ah taasina waxay cadeynaysaa in khawaarijta ay waqtigoodu u dhamaaday. waxaan rabaa maantay halkaan u joognaa ninkaas dhalinyarada ah ee iska soo dhiibay ama ka imaaday nimanka nabadiidka khawaarijta Al-Shabaab baadama uu halkaan uu nagu sheegay dhibaatooyinka iyo waxyaabaha sababay inuu ka yimaado runtii waxaan rabnaa dadka sidaas oo kale toodo nimankaas ka imaaday inaan si laab furan ku soo dhaweyno maadaama madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay in laga soo baxo nimankaas khawaarijta ah annagana waxaan rabnaa inaan qof kasto ka yimaada aan soo dhaweyno aan baaritaankii amarsiino kadibna markaas sida hadda Cabdi Xasan oo u cadeeyay mowqifkiisa markii mowqifkiisa qofku uu cadeeyo kadibna aan sii deyn marka sidaas darteeda hadda sida uu noo sheegay yarkaas dhalinyarada ah ee la qalday waxyaabihii uu ku soo arkay ee tacdiyaadka ah tacdiyaadkii ay shabaab sameynayeen ummadii muslimiinta ay gumaadayeen ummadii xoolahooda hadda saaka waxa la sheegay 400 oo neef oo ari inay wada bireeyeen ay dhahan murtadiin wa xoolihii inay yiraahdeen murtadiin wa hadda la marway waxyaabo kale toodoo aan aragno in ceelashii ay gubaan bam ay ku xiraan ii sheeg ayagoo dhaha diinta ugu dhawaanayna ayay maraysa lama arkin diintana meel uga ma qorno in ceel ummad ay ka biyo cabayso xoolihii ay ka biyo cabayaan bahaa'imkii ay ka biyo cabayaan sidoo kale tood xasharaadkii kale tood ay ka biyo cabayaan in la jaro ama la gubo meel ay diinta sal iyo raad uga leedahay ma jirto. Iskariya Ali Raage warbaahinta qaranka degmada Bulaburde.